maanta waa waqtiga ugu muhiimsan uguna habboon noloshaada maxaa yeelay hadda waxaad go'aansan kartaa waxaad samaynayso iyo habka aad nolosha u maarayso. Haddaba daawada muuqaalkan waxaa raba inaan idinku soo gudbiyo macluumaad la isku halleyn karo oo aad u habboon haddii aad rabto in noloshaada qorshooyin la isku halleyn karo ka gaarto. Qorshaha ugu horeeya ee nolosha inaad gaarto loo baahan yahay 1. Fikrad ama ideology. waxaa la doonayaa go'aanada noloshaada iyo qorshahaaga inaad ku dhisto go'aan adag oo u dhabar adeegid ah. Ha u ogolaan qofna inuu ku dareensiiyo inaad adigu waxba ahayn. mar waliba naftaada ku kalsoonow. mar waliba xasuusnow inaad tahay qof qiimo leh. waxaad had iyo jeer dareentaa in go'aanadaada iyo dhaqdhaqaaqaaga noloshaada muhiim u yihiin. 2. go'aan adag. si aad u guulaysto waa in mar waliba go'aanada ugu aas-aasan uguna muhiimsan noloshaada aad xoogga saartaa. mar waliba noloshaada waqti walba saacad kasta qofka go'aanka noloshiisa ka gaarayo waa adiga. waxa aad doonayso inaad samayso sida aad go'aanka ugu soo gaartay oo kale waa inaad sidaas si la mid ah u samaysaa. haddii aad geed noqon karin ugu yaran waa inaad noqotaa laantiisa. sidoo kale haddii aad dayaxa noqon karin ugu yaran waa inaad xidigtiisa noqotaa. sababtoo ah waxyaabahani ma aha ciribtir go'aaminaya inaad guulaysanayso ama guuldaraysanayso. sababtoo ah waxyaabahani ma aha ciribtir go'aaminaya inaad guulaysanayso ama guuldaraysanayso. waxa alla wixii aad tahay noqon kan ugu wanaagsan uguna fiican. nolosha weligeed ma noqon jaranjaro si sahlan lagu fuulo, laakiin waa inaad hore usii socotaa, horena u dhaqaaqdaa. haddaadan socon karin waa inaad garguurataa. dhinac waliba say noqotaba waa inaad hore u dhaqaaqdaa.